gelisa. boqolaal dadweynaha oo taabacsan taageersan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku soo maxmay degmada Boocam ee gobolka Sool iyagoo sheegay inay taageersan yihiin go'aamadii xalay laga gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya sidoo kale waxay fariin degmada Boocam u direen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan maalmihii ugu dambeysay waxa la sheegeen in hadalkii uu dhawaan khudbad jeediyay saxaaha hadal munaasib ahayn dadweynahan ayaa sidoo kale soo maray faagaarayaasha kala duwan ee degmada Boocam ee gobolka Sool iyagoo ku dhawaaqayay halku dhigay ay ku taageersan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi